halkani waa xarunta ay u soo gurtay hay'adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya xafiiskeeda Garowe. dadkani waa baasaboor sugayaal badankood ka yimid gobolada waqooyi ee Somaliland. 3 bari ayay xanimneed shaqada baasaboor bixinta maadaama ay hay'addu ka soo guureysay dhismo ay ku shaqeynaysay 12 sanadood. qaar ka mid ah warbaahinta ayaa baahiyay warar sheegaya in uu jiro khilaaf ka dhex taagan laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xafiisyada Muqdisho iyo Garowe, taasina ay sababtay inay hakad galaan howlihii bulshada loo hayay. haddaba hadalkaasi loo sheegay bulshada waxaa ka jawaabay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne iyo agaasime ku-xigeenka hay'adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaaliga ah Axmed Xuseen Raage oo shir jiraa'id ku qabtay xarunta cusub ee haatan ay shaqadu ka socoto. 3 bari hay'addu waxay gashay guuritaan waxay deganeed guri kiraa 12 sano. gurigii kirada waxay ka soo guuday 3 bari geediya maanta geedigeeda dhamaystirmay. saddex iyo tobanka bisha oo bari oo talaadana waxaa bilaami doonta shaqadii dadka loogu shaqeynayo oo lagu bixinayo baasaboorada. wax khilaafina kama jiraan. waa laga soo guuray geedigaas jiray waa la soo raray wax kale oo shidaaya jira ma jiraan. website-yada iyo Facebook-yada markaa waa ku arkay iyo dad hadlayo aan war qabeyn oo isleeh dadku 27 sano khilaaf u barteeno hadii meel la xiro oo la guuraayo waa sharaysanayana waxay moodayeen khilaaf soo dhaxgalay. laakiin waxaan wargelinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in hay'adda socdaalka jinsiyadda laanteeda Puntland in dib loo ambaqaadayo dib loo furayo berrito ay shaqada ay bilaabanayso wax caqabadana aysan jirin oo dheeraad ah. dhanka kale dadka ku hadlay ama saraakiisha ku hadashay magaca hay'adda ma aha kuwa matala kuwa shaqul kulana ma aha dhamaantood. hay'adda dadka shaqada ku leh waa annaga aan hadlayno waxaan u cadeynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in warka ay gudbeen aysan ahayn war wax jira ah aysan matalin hay'adda socdaalka jinsiyadda. wabillahi tawfiiq. dadkaasi waxay ahaan dad shaqada laga wada joojiyay dhammaantood oo wax shaqo aan ku lahayn dambiye hore galan shaqada laga joojiyay. Cabdikariin Maxamed Faarax Dhagaweyne agaasime ku-xigeenka laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xarunta Puntland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadallada aan la hubsan iyo wararka aan shiilnayn ee shacbiga la wadaagayo sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu shaaciyay hadda inay si wanaagsan u socoto shaqada xafiiska maadaama geedigii uu dhamaaday. waxaan leeyahay runtii wax khilaaf ku jira hay'adda ma jiraan. systemkii iyo nidaamkii uu socdaa dadkan u jeedaan hadda waa dadka loo shaqeyn lahaa oo baasaboorka qaadan lahaa iyo kuwii socdaalka ahaa. waxaan leenahay nimankii shalay hadlay inuu ahaa hadalkaas hadal gaf ah. hay'addu waa isku duuban tahay agaasimihii laanta iyo magaranaysa iyo ku-xigeenadiisii. waxaan u sheegaynaa dadka inaan wax khilaaf ka jirin. haween Soomaaliyeed oo ka yimid magaalooyinka Somaliland ayaan kula kulmay xarunta cusub waxaana kala sheekaystay shaqada loo hayo iyo haddii ay jirto caqabada ay la kulmeen inta ay ku sugnaayeen magaalada Garowe. aad baan ugu faraxnay. midda labaad waxa weeyaan anagu waxaan soo galon daraadna waxa la yiri xidhan tahay meeshu sida ahaan baan idin sugaynay haddana meel fiican iyo dad qurux badan iyo meel qurux badan baan u nimid. xagee ka timaado? Boorama ka yimid. magaalada Boorama marka baasaboor baa soo doonay. baasaboor baa soo doonay. waa ka ma sha Allah hay'ad ma santaa. aniga magacayga Nuuc Jaamicin baa la yiraahdaa. magaalada Boorama ka yimiday baasaboor baan soo doontay. markii hore uu xidhnaa la yiri laakiin maanta uu furan yahay shaqadiina waana loo bilaabay. bari subaxana toos baad wada qaadanaysaa baan lagu yiri dhamaantiin intii baasaboor doonayso dhan waa loo dhameystiri doonaa bari ayaan xiritaanka wax keenay ma leedin sheegay ma waxa xiritaanka sababta keentay waana loo sheegay waxaana lagu yiri meesha soo guureysay oo meel kale u soo guureysay lagu yiri meeshii kale way soo guuritay nidaamkii ay wax ku bixin lahaayeen iyo processkooda baa u socday imikana wax kale oo dhibaato ah la kulantay wax kale oo dhibaato ma jiraan. qaar ka mid ah warbaahinada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ayaa waxa ay baahiyeen in khilaaf dartii hakad loo geliyay shaqadii xafiiska baasaboorada Garowe, waxaana arintaasi ay rajo xumo gelisay dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo doonayay inay u soo safraan magaalada Garowe si ay u qaataan baasaboorka Soomaaliga ah. Maxamuud Soofaysane, TV-ga Somali News, magaalada Garowe.